بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومحمد إسماعيل عمر كسود وهذا مرات برنامج كيان وقتل قلنا دتك كفايدستان برنامج كفرصة وطن كان ذاك الشيء وحنا وقتل قلنا دتك كفايدستان كريني كفايدستان إسلام مركانا ورناهانتي وبرنامج آدي أهد وقيمة فربضان وفرصدوين فربضان والشقوين إيا وحبرشا إيا دقنا شوطن كان ذا أتكهلي كرتد haddii aad tahay qof kasoo bixi kara shuruudaha isla markaana oofin kara waxyaalaha loo baahan yahay. qodobka maanta aan kusoo qaadanayna waa qodob aad iyo aad u xiiso fara badan. waxa weeye waa Canada oo u baahan 1,080,000 oo qof. 1,080,000 oo qof ayay Canada u baahan tahay muddo 3 sano sanadka 2019 iyo sanadka 2020 iyo sanadka 2021 saddexdaas sano ayay u qaybisay. barnaamijkani waxa weeye waa qorshe ay dawladda ugu tala gashay in ay maaragtay diiradda ku saarto dadka ay isleedahay way u baahan tahay, isla markaana meel kaliya toon program kaliya ama dad kaliya toon ma soo qaadanayso, way qaybisay dawladdu. tusaale dadka shaqooyinka ama xirfadaha leh waa dadka ugu badan ee loo baahan yahay barnaamijkan lagu keeni doono inta u dhaxaysa 3 sano haddii alla idmo. barnaamijka sidoo kale waxaa loogu daray in qaybaha kale ee immigrationka qayb laga siiyo, matalan family reunionka dad badan ayaa ku jira. sidoo kale dadka qaxoontiga qayb ayaa la siiyey. marka barnaamijkani wuxuu u fiican yahay run ahaantii dadka doonaya si degdega wadankan inay u yimaadaan muddada inta u dhaxaysa 1,080,000 oo qof weeye. sanadka ugu horeeya waa 330,800 oo qof ayaa la keenaya. sanadka ku xigana waa 341,000. sanadka ku sii xigana waxa weeye waa 350,000. marka sidaas ayaa loo qaybiyay oo dawladdu ay u qaybisay. sababta ay barnaamijkan sida ay u dardargelisay waxa weeye waxa jira wax la yiraahdo shortage economic skills workers oo loo baahan yahay dadka xirfadda leh ee wadankan dhaqaalaha ku soo kordhin kara oo yar meelaha magaalooyinka qaarkood ku yar. saadaradeed dadkan waxay ka caawinayaan in gaababkaas meelaha bannaan ee shaqooyinka xirfadda leh looga baahan yahay in ay buuxiyaan. sidoo kale dawladdu kamay tegin haddii ay noqoto dadkii humanitarianka ah iyo dadkii qaxoontiga ahaa iyo dadka halkan degan ee Canadian residencyga ama citizenka ah isla markaana doonaya dadkooga in ay keenaan. way ku jiraan iyaguna qaybahaas bay ka mid yihiin, laakiin sanadkii waa 300,000 oo dheeraada ayaa la keenayaa. marka barnaamijkani wuxuu u fiican yahay haddii aad arday tahay iyo haddii aad leedahay xirfad shaqo isla markaana aad shahaado ugu yaraan shahaado dugsi sare aad haysatid, haddii aad haysatid shahaado jaamacadeed iyo haddii aad leedahay xirfad gooni laakiin waxbarashadaadu aad haysatid heerka dugsiga sare way ku anfacaysaa. waxa kale oo muhiim ah inaad luqadda Englishka aad taqaanid isla markaana aad ku hadlaysid oo maaragtay aad ku communicate gareyn kartid, waayo wadankan laba luqadood baa lagaga hadlaa, luqadda Englishka ama luqadda Faransiiska. Faransiiska gobol baa ku hadla, laakiin gobolada badankooda inta ugu badan waxay ku hadlaan Englishka. marka saasay muhiim u tahay inaad shuruudaha marka hore aad iska eegtid inta aanad u hanqal taagin imaanshaha wadankan. sababtoo haddaanad luqadda garanayn dema iman kartid, waayo waa waxa aad ku wada hadlaysiin adiga iyo qofka aad wadankan degan ee aan ku fahmayn ama luqadaada aan fahmayn. marka saasay maaragtay ay luqaddu muhiim u tahay. waxa la iskaga baahan yahay level ama darajo laga aqbalayo imtixaan baa loo galaa. marka waxa weeye luqaddu waa muhiim.
isla markaana programku wuxuu eegayoo kale dadka xirfadda leh ee soo shaqeeyey waxaa lagugu siinayaa darajo inaad shaqada xirfadda ee waddankan looga baahan yahay iyadana aad khibrad ka haysatid oo maaragtay aad wixii aqoon u leedahay aqoonta ka sokow wixii aad farahaaga kaga soo shaqaysiisay oo in practical way aad maaragtay aad wax usoo qabatay. marka saasay ay muhiim ugu tahay. waxaa jira iyakuna programmo kale oo loogu talagalay gobolada yaryar ama magaalooyinka yaryar hadda soo koraya oo iyakuna run ahaantii dad fara badan u baahan. kuwa programka ayaan gadaal kasoo sameyn doonaa arrintaa ku saabsan. laakiin waxaad moodaa guud ahaan waddankan Canada inuu dad u baahan yahay. dadka uu baahan yahayna waa dadka waxa ugu badan waa dadka xirfadda leh ay doonayaan inay waddanka dhaqaalaha kor ay u kobciyaan oo u qaadaan oo qayb ay ka noqdaan waddankan, isla markaana ay noqdaan dad cashuur bixiya oo waddankan qeyboonka noqda iyakana loogu abaalmariyo in la siiyo sharciyada waddankan ay degaan dadkooga waddankii jooga wadamadooda joogana in ay keensan karaan. marka waa fursad wanaagsan weeye. ciddii ka faa'iideysan karta arrintaas waxaanu u sheegana inay ka faa'iideystaan. haddii aad u baahan tihiin in laydiga caawiyo warqadaha iyo sida loo buuxbuuxiyay iyo cidda waxaan khabiir ku ah waan dula xiriirsiin doonaa insha Allah. looyara jira looyara lala xiriiro oo maaragtay adigoo meeshaada waddankaaga jooga wixii ku dhameynaya isla markaana ku sheegaya inaad maaragtay aad ka soo baxday shuruudihii iyo in kale. marka waxa weeye inta aanad warqadaha iyo aanad apply gareyn adigu laftaada waxa jira dad ka eegaya warqadaha aqoonsigaaga, kuwa sharciga, kuwa waxbarashada iyo kuwa meelaha ka soo shaqeyn jirtay oo kan. marka waxa weeye toos ayaa lagu geenayaa shirkadda aad u baahan tahay ama iskuulka aad u baahan tahay ama jaamacadda aad u baahan tahay adigoo waddankaaga jooga ayaa waxaasoo dhan loogu soo dhameynayaa. xataa fiisaha dalka waddanka Canada adigoo gurigaaga jooga lagu soo dhameynayaa. laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad wixii shuruudo ah aad ka soo bixi kartid oo ah xirfadda inaad u leedahay waxa ay waddanka Canada looga baahan yahay iyo aqoonteedii inaad leedahay oo ay ka mid tahay ugu yaraan inaad high school aad dhamaysay luqadda waddankan aad ku hadlaysid shaqada aad qabanaysidna inaad aqoon u leedahay. intaasaa ugu muhiimsan. waxa weeye barnaamijkani waa kaas inta ugu badan diiradda intaas ayuu saaraya. laakiin haddana waxa weeye barnaamijyadii kale qaxoontiga dadka qaxoontiga qayb baa kaga jirta oo waxa loogu talagalay dad qaxoontiga in la keeno oo iyadana lagu caawiyo. marka haddii aad tahay qof qaxoontiga oo waddanka dibadiisa ku nool isla markaana doonaya waddankeena timaadid isagana horaan kaga soo hadalnay fiidiyodeygii hore ayaanu kaga soo hadalnay. marka isku day inaad daawatid. waxa weeye 1,080,000 oo qof dad yar maaha. 3 sano loogu talagalay sanadkiiba 300 iyo ugu yaraan 40,000 ayaa loo baahan yahay oo waddankan dawladda u baahan tahay oo shaqooyinka loo baahan yahay skillska ku xidhan ay maaragtay dadka ugu baahan tahay. marka 300,000 iyo 40,000 ee dheer 300,000 iyo 40,000 ee dheeraadka sanadkii la keenayo shaqada kaliya looguma talagelin. waxaa ku jira dadka shaqada iyo waxbarashada dalbanaya, waxaa ku jira dadka qaxoontiga ah, waxaa ku jira dadka humanitarianka loo eegayo ee wadamadooda ka soo cararaya isla markaana u baahan nabadgelyo iyo magangelyo. hadday yihiin kuwa siyaasadeed, hadday yihiin kuwa loo beegsanayo diiniyan, hadday yihiin kuwa loo beegsanayo kalarkooga, hadday yihiin kuwa loo beegsanayo macnaha fikirkooga ay aaminsan yihiin, hadday yihiin kuwa laga tirada badan yahay. marka dawladda Canada way qaybisay, cid walba waxbay ugu dartay, qaxoontiga qaybtiisii bay siisay. marka waxa weeye barnaamijku aad buu u ballaaran yahay. haddii aad macluumaad dheeraad aad u baahan tihiin oo barnaamijkan ku saabsan hoosta noogu soo sheeg insha Allah. wixii intaa dheeraada waxa weeye waxaad nagala soo xiriiraysaa emailkeena. ha iloobin barnaamijka inaad sii qaybisid isla markaana asxaabtaada aad la sheergelisid
sidoo kale hayloobin inaad bogga aan ku leenahay youtube-ka aad subscribe noo samaysid. waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.